waxaa jira dhismayaal taariikhi ah oo aan la garanaynin cidii dhistay jinni iyo insi ku yahay iyo sida loo dhisay waxaa jira kuwa quraanka uu ka waramay waxaana daliil u ah ciidamadatil cimaad magaaladani waa la isku khilaafsan yahay dhismaheeda iyo qoomkii degi jiray rabbi waxa uu yiri allati lam yukhlaq mislaha fil bilad wax la mid ah laguma abuurin dhulkani hadii la isku dayana in la dhisaa lama awoodo dhismayaashani aasaaskooda ayaa ka yaabiyay saynisyahanada iyo cilmi baarayaasha ma ahan quruxdooda iyo nashqadooda balse waa qaabka ay u dhisan yihiin muuqaalkeena maanta waxaan kuugu soo koobi doonaa qaar kamid ah fadlan ku soo dhawow muuqaalkeena maanta dalka Masar waxa ku yaala 3 ahraam oo waaweyn oo la dhisay xilligii boqortooyadii afraad ee Masar 4523 sano ka hor ahraamtani run ahaantii waa la yaab qaabkooda waayo waxa uu dhan yahay 236 mitir dhagaxa ugu yar ee ahraamtan wuxuuna u dhaxeeyaa 900 kilogram ilaa iyo 2.5 tan culeyskooda halka gidaarada qolka boqor Kuufa ay ka sameeysan yihiin dhagaxaan miisaankoodu yahay 25 ilaa 80 tan culeyskooduna wiishaska casriga ah ee hadda jira qaadi karin waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya ayaa ah in ay adoomo dhiseen ahraamtani balse ma dhisin adoomo waxa dhisay shaqaale xirfad leh iyo injineero horumarsan dhab ahaantii kubii ka qayb qaatay dhisida ahraamtani waxa ay kasbadeen ixtiraamkii fircoon iyo waxa ay maqaam ku yeesheen mujtamacii hore ee Masar ilaa la gaarsiiyay in dadkani xabaal gaar ah loo qoondeeyay iyaga oo ku xiga ahraamtani dalka Bolivia caasimada La Paz waxa ku yaala albaab weyn oo dhagax ah oo ay dhistay ilbaxnimadii Tiwanku sanadkii ilbaabkani ayaa ka mid ah waxyaabaha ka yaabiyay saynisyahanadu maadaama dhirkiisu yahay 2.5 mitir balciisuna yahay 3.8 mitir culeyskiisuna yahay 10 tan markiisii hore ilbaabkani waxa uu ku yili xeebta balse markii dambe ayaa loo soo raray buuraha La Paz haddaba sidee loo soo qaaday wax miisaankiisu yahay 10 tan dalka Mareykanka magaalada Miami ee gobolka Florida waxa ku yaala goob loo dalxiis tago oo loogu magac daray Coral Castle taantan taariikhiga ah waxa dhisay injineer Mareykan ah oo loogu magac daray Eduardo Ledescanin astaantan taariikhiga ah waxa ay ku kooban tahay dhowr dhagax oo miisaankoodu yahay 1100 tan Eduardo dhismahani waxa ay ku qaadatay 28 sano waxaana si rasmi ah loo furay 1920kii maxay tahay sirta la yaab kale ee ka dambaysa dhismahani ma aaminaysaa hadii aan ku dhaho Eduardo qalcadani waxa uu ku dhisay labadiisa gacmood isagoo cidina weydiisan wax caawimaad ah isla markaana aan isticmaalin wax mashiin ah dhagaxaanta qaar ayaaba ah miisaankoodu 28 tan halka qaar kamidna ay yihiin 53 tan albaabka qalcadani waxa uu gaarayaa 58 tan Eduardo si loo ogaanin maalintii waa uu seexan jiray habeenkina waa uu shaqeyn jiray tan iyo 28 sano ilaa uu ka dhiso Coral Castle Eduardo waa ay ku wareereen saynisyahanada iyo injineerada hadda jira koox caruur ah ayaa sheegtay in ay arkeen iyaga oo ciyaaraya Eduardo oo dhisayo qalcadani waxayna sheegeen in dhagaxaantu ay dul sabeynayeen hawada sare uuna Eduardo adeegsanayay jiniyo ninkani noloshiisa iyo caruurnimadiisa wax ku saabsan lama yaqaano magaalada Baalbeek ee dalka Nublaan waxa ku yaala macbad weyn oo ay lahaayeen Roomaanka dhismihiisu wuxuu soo bilowday 2000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise dhagax kasta oo macbadka ku yaala miisaankiisu waxa uu yahay 1000 tan taas ay tahayna waa la dhisay oo waxa loo dhisay qaab yaab badan aasaaska macbadkani waxa loo isticmaalay dhagax miisaankiisu gaaraya 1000 tan waana dhagaxaantii ugu cuslaa ee taariikhda loo isticmaalo dhismo dhagaxa ugu culus ee ilaa iyo hadda la helay waa Mansi Stone oo la helay 2014 waxaana gacanta ku haya koox saynisyahano oo ay soo dirtay hay'adda qadiimiga ah ee Jarmalka dhagaxani dherirkiisu waxa uu gaarayaa 19.6 mitir balciisuna waa 6 mitir miisaankiisuna waa 1650 tan waa dhagaxii ugu cuslaa ee la raro taariikhda aadanaha ilaa iyo maanta la joogo waana sirta ugu yaabka badan ee ilaa hadda la xalin la'yahay haddaba sidee loo qaaday 400 sano ka hor dhagaxani wiish la'aan